سعادة السفير waxa markii ugu horeysay dhowr iyo 20 sanadood oo Soomaaliland ay jirtay ay bulshada reer Soomaaliland ay u oomban aqoonsigu ay sameeyeen banaanbax kii ugu ballaarnaa oo ka dhacay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium isla markaana xarunta midowga Yurub sidee bay ka safaarad ahaan arintaas idinku suura gashay Mustafa waxa weeye arintaasina waa arin wanaagsan weeye waxa nagu suurtoobay arintaasi dad aad iyo aad maaragtay u xiiseeyay Soomaaliland oo asalkooduna Soomaaliland ay ka soo jeedaan ayaa magaaladan iyo wadankan ku dhaqan Belgium سعادة السفير waxaa jira wada hadallo u socda Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwaas oo ka dhacaya dalka Turkiga waa sidii aragtidaada ku wajahan wada hadalladaas wallahi horta su'aashaasi waxa weeye waa su'aal weyn waa su'aal xaqiiqi maaragtay aad iyo aamiyad weyn leh waana arrin maaragtay qoto dheer weeye waayo mustaqbalkii labada wadan ay ku saabsan tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya marka waad ogtahay kal hore waa tii London la isku yimid waa tii international community adduunyadu ay goosatay in labada wadan ay wada hadlaan oo mustaqbalkooda ay ka wada hadlaan marka tan Turkiga ha ahaato iyo mid kale ha ahaatee inaynu maaragtay hadallo la hadallo oo mustaqbalkeena kala hadallo oo si fiican aynu kala baxno walaaltinimo ah ayaa la doonayaa oo annagana maaragtay waxa qarqarada ana inagu sameyn oo si wanaagsan oo mustaqbalkina hadhow doonaynu wada qabsan karay